Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cashirkan waxaan ku baranaynaa daawooyinka loo yaqaano beta blockers. Beta blockers waxaa loo isticmaalaa cudurro badan oo ku dhacaya cardiovascular systemka. Marka qaabkay u shaqeeyaan ayaan ku baranaynaa cashirkan. Marka beta blockers intaanan ka hadlin, waxaa muhiim ah beta blockers inaad baratid, inaad taqaanid qaabka u shaqeeya sympathetic nervous systemka iyo neurotransmitterka. cashir oo mar hore ayaan ka diyaarinay neurotransmitterka oo soo deeyo sympathetic nervous systemka iyo parasympathetic nervous systemka qaabkay u shaqeeyaan oo ay ku controlaan muxuu ahaa garaaca oo wadnaha, sinoatrial node-ka iyo neurotransmitterada ay soo deeyaan oo ah noradrenaline iyo adrenaline, sidoo kale loo yaqaano norepinephrine iyo epinephrine. markii nervous systemka uu soo daayo noradrenaline oo uu yimaado wadnaha ama xididada dhiiga oo ay ku yaalaan waxa loo yaqaano alpha receptors iyo wadnaha ay ku yaalaan beta 1 receptors iyo sambabada bronchioles oo ay ku yaalaan beta 2 receptors, waxaa dhacda in oo receptor macnaa oo beta ayuu noqon karaa beta receptor ama wuxuu noqon karaa alpha receptor oo ku yaala macnaa smooth muscle-ka oo blood macnaa xididada dhiiga dul saaran, ama wuxuu noqon karaa bronchioles. markay imaadaan way active gareeyaan macnaa sympathetic nervous system ay active gareeya. For example, hadaan wadnaha fiirin oo kale, garaaca wadnaha hadii la rabo in la zaaidiyo maxaa dhacaya in sympathetic nervous systemka uu soo daayo noradrenaline oo u imaado sinoatrial node iyo myocyteska macnaha unugyada muruqaha ee wadnaha. taas maxay keentaa in uu zaaidiyo garaacitaanka wadnaha, macnaha inta jeer oo action potential oo ay sameynayaan pacemaker cells iyo xooga oo unugyada contractionka u sameynayaan. marka beta blockers waxa ay sameeyaan waxay tahay in ay blockreeyaan receptorka oo loo yaqaano beta receptor ama alpha receptor ay blockreeyaan, taasoo keenta in ay joojiyaan shaqadii uu qabanayay sympathetic nervous systemka oo ah in garaaca wadnaha uu zaaidiyo ama in oo uu weyneeyo macnaa diameterka oo bronchioleska, ama in oo constriction uu ku sameeyo xididada dhiiga maadaama smooth muscle-ka hadii oo uu imaado macnaa noradrenaline ama adrenaline oo ay active gareeyaan smooth muscle receptor ku yaal ee alpha receptorka ay keenaan constriction. marka haddaa block gareysid maxaa dhacayo in garaaca wadnaha uu yaraado, macnaa xooga uu garaactamaayo iyo inta jeer uu garaactamaayo in uu yaraado. hawada oo weynaanaysay macnaa diameterka oo bronchioles maadaama uu weynaanayay hadii noradrenaline uu imaado in uu yaraado, narrowing uu ku dhaco. muxuu ahaa blood vesselska xididada dhiiga oo constrictionka lagu sameynayay markii uu imaado macnaa noradrenaline hadii beta blocker ay isticmaasho maxaa dhacayo in oo dilation ay sameeyaan. marka alpha 1 receptor wuxuu ku yaalaa smooth muscle, waxaa loo isticmaalaa alpha blockers daawooyinka loo yaqaano sida tamsulosin oo kale ama doxazosin, beta 1 oo ku yaalo wadnaha iyo beta 2 oo ku yaala muxuu ahaa beta 2 receptors oo ku yaala bronchioleska oo muxuu ahaa bronchioleska ama sambabada. marka side effect badanaa oo beta blockerska waxaa lahayaan la siinin beta blocker qof qabo cudurka asthma ama COPD ama qof oo qabo cudurka oo diabetiska iyo waxaas oo dhan. sababtana waxay tahay waxay blockgareeyaan airwayga, macnaa airwayga waxaa ku yaala beta 2 receptors. markii ay blockgareeyaan maxaa dhacayo in oo uu noqdo constrict sympathetic nervous system wuxuu sameynayay dilation. hadii beta blockers ay isticmaalsid waxay sameynayaan constriction in uu yaraado tubooyinka hawada soo qaaday ee bronchioles, taasoo keenaya qofka inay neefta ku xiranto hadii qof asthma qaba ama COPD oo la siiyo beta blocker. sidoo kale qofka diabetiska qaba waxaa ku dhacda mararka qaar waxaa loo yaqaan hypoglycemia, in sokorta jirkiisa hoos ay u dhacdo. marka calaamadaha qofka uu dareemo markii oo sokortiisa hoos ay u dhacdo waxaa ka mid ah garaaca wadnihiisa oo zaa'ida. marka qof diabetes qaba hadduu isticmaalayo beta blockers waxaa dhacaysa in uu garan waayo calaamadihii oo hypoglycemia, macnaa in uu garan waayo sokortiisa hoos inay u dhacday, sababtoo ah beta blockers waxay maasgareynayaan receptoradii wadnaha oo garaacay qofka uu dareemi lahaa garaaca wadnihiisa oo zaaid u garaactamaayo. taas waxay keenaysaa qofkii dareenkii inuu ka dhumo oo coma uu galo, macnaa asoo sokortiisa aad iyo aad hoos ay tagtay uu dareemo macnaa oo xaalad oo halis ah uu galo.
so marka daawooyinka beta blockers waxaa ka mid ah propranolol, bisoprolol, atenolol, nevidolol, daawo walba oo ku dhamaata daawooyinka badanaa ku dhamaata olkaas waxaa waaye beta blocker. habka ay sameeyaan waxay tahay in ay yareeyaan xooga uu garaactamayo macnaha negative inotropic ayaa lahaa. negative inotropic waxaa waaye xooga oo wadnaha uu garaactamayo muruqyadiis in uu yareeyo. sidoo kale waxay yareeyaan inta ratekana waa yareeyaan. kuwa qaar oo beta blockers waxay macnaha selective ku yihiin. selective waxaa loo yaqaanaa beta blockeryaasha qaar oo sida atenolol oo kale iyo bisoprolol waxay aad macnaha ugu dhagaan receptorka wadnaha ku yaalo. badanaa receptorka ku yaalo smooth muscle-ka iyo kan ku yaala bronchioles oo sanbabada mukulaha macnaha ficil. so haddii for example qofka asthma oo kale uu qabo oona u baahan yahay beta blocker oo daawooyinkii kale oo waxay u tari waayeen, waxaa la siinayaa daawo oo cardio selective ah sida atenolol oo kale ama bisoprolol ama nebivolol. kuwaasoo dhan waxaa waaye cardio selective beta blocker. laakiin propranolol oo kale waxay tagtaa labadaba beta 1 iyo beta 2 labadaba way block gareysaa. so marka propranolol oo kale waa muhiim inaan la siinin qof qaba cudurka oo asthma. sidoo kale sotalol waa daawo oo beta blocker ah laakiin badanaa loo isticmaalo haddii qofka ay ku dhacdo arrhythmia iyo waxaa sababtoo ah waxay leedahay waxaa loo yaqaana membrane stabilizing activity, kaasoo ah in ay yareyso macnaha action potentialka ama sodiumta difference oo membrane potentialka uu ku sameynayo. arrhythmia cashir kale ayaan ku baran doonaa. waa daawooyin oo complex ah iyo qaabkay u shaqeeyaan type 1 type 2 macnaha mar kale ayaan baran doonaa. marka beta blockers waxaa muhiim ah inaan lala isticmaalin bradycardia haddii qofka oo wadnihiisa oo muxuu ahaa low heart rate macnaha garaaca wadnihiisa haduu qofka yaryahay, haddii oo conton jeer oo kale uu ka yaryahay garaaca wadnihiisa not to be used in conjunction with blockers. no kan waxaa waaye qalad. beta blockers ayagaaba ah. waa inaan la isticmaalin verapamil ama diltiazem oo ah daawooyinka loo yaqaano calcium channel blocker. dadka oo isticmaala aan dhehe calcium channel blockerska oo verapamil iyo diltiazem badanaa waxaa lahayaan la siinay. laakiin sometimes waxaa arkaysa dhakhaatiir specialist oo cardiologist oo isticmaalaya beta blocker iyo diltiazem, laakiin waa halis aad u weyn. waxay qaadanayaan responsibility halis ah sababtoo ah daawooyinkan calcium channel blocker oo loo kala qeybiyo dihydropyridines iyo non dihydropyridines. macnaha verapamil iyo diltiazem waxaa waaye non dihydropyridines. marka actionka badanaa waxay ku sameeyaan wadnaha muruqyadiisa macnaha unugyada masalka ay hoos u dhigaan garaacitaankood. so marka haddii beta blockers oo ayagana hoos u dhiga garaaca wadnaha labada la isticmaalo waxaa dhacaya qof wadnihiisa inuu istaago macnaha oo shaqadii uu shaqeyn waayo. marka waa muhiim beta blocker iyo verapamil inaan la isla qaadan. waxaa kaloo muhiim ah macnaha waxyaalaha cautionka beta blockerka in oo ay keenaan garaaca wadnaha oo yaraado sababtoo ah waxay yareeyaan contractionka oo muruqyada oo wadnaha. waxay kaloo keenaan macnaha haddii qofka AV block uu qabo. AV block waxaa waaye haddii pacemakerka oo sinoatrial nodeka iyo atrioventricular nodeka oo ku yaalo meesha u dhexaysa right atrium iyo right ventricleka aysan electricity shaqeyneynin in aan la siinin beta blocker. qof qaba asthma, COPD iyo diabetes waan soo sheegnay sababtoo ah qofka diabeteska qaba waxay qariyaan calaamadaha lagu garto hypoglycemia sida tachycardia oo kale. waxay kaloo keenaan impotence macnaa ragga in oo awoodood hoos ay u dhigaan. qofkii qarow inuu lasoo kaco. fatigue macnaa daal tira badan qofka inuu dareemo beta blocker qaadanayo iyo gacmihiisa iyo lugihiisa qabow inuu ka dareemo. marka side effect-kaana arkiin oo dhan side effect oo macnaa oo aad dareemi kartid waaye. sympathetic nervous system-ka no adrenaline markuu soo deeyo maxay soo deysaa macnaha glucose jirka wuxuu ku shaqeeyaa sympathetic nervous system-ka macnaha stress hormone waaye. no adrenaline iyo cortisol waa stress macnaha receptor stress hormones iyo neurotransmitters waaye. waxay macnaha kor u qaadaan energy-ga oo jirka. haddii marka oo beta blocker isticmaalaysid oo blockgraysid activity-giisa waa side effect marka oo predictable ah macnaha oo wax oo lala yaabo aan ahayn in oo haddaa blockgraysid stress hormone and neurotransmitter in oo side effect-gan uu kugu dhaco. marka waxyaalaha beta blockers oo indicationkiisa ah aad iyo aad ay u tira badan yahay. so for example waxaa arkaysaa propranolol oo kale hadaa fiirisid inta license ay qabto oo waxaa arkaysaa asoo loo isticmaalo
40 milligram propranolol 3 times a day waxaa arkaysaa loo isticmaalo anxiety, hyperthyroidism haddii qofka thyroidka badan uu soo saarayo oo garaaca wadnihiisa oo palpitationka uu dareemayo. waxaa loo isticmaala heart failure haddii qofka oo macnaha oo garaaca wadnihiisa oo uu dhimanayo wadnihiisa. heart failure iyo heart attack waa kala duwan yihiin. heart failure waa marka garaaca macnaha muruqyada wadnaha aysan si fiican u shaqaynaynin laakiin qofka still uu nool yahay. laakiin heart attack waxaa waaye mar uu dhacay macnaha waxa loo yaqaano acute coronary syndrome oo qofka wadnihii hal mar lagu soo buuday oo xanuunsan yahay. waxaa kaloo loo isticmaalaa sida daawooyinka sotalol oo kale, arrhythmia haddii oo habka wadnaha uu garaacmayo uu qaldan yahay, myocardial infarction haddii qofka uu ku dhaco myocardial infarction oo ah dhimasho oo qaar ka mid ah wadnaha in si degdeg ah beta blocker loo isticmaalo. angina ayaa loo isticmaalaa sidoo kale macnaha xabadka oo qofka xanuunayo oo ay keeneen coronary arterieska oo plaque uu ku sameysmay, iyo sidoo kale hypertension. laakiin beta blockerska waa second line. first line oo hypertensionka waxaa waaye ACE inhibitorska iyo angiotensin receptor blockerska iyo calcium channel blockerska ayaa first line waaye, kuwaas ayaa la isticmaalaa. haddii kuwaas waxba ay tari waayaan ayaa qofka loo isticmaalaa beta blocker.